asalaamu calaykum. isku soo noqod wanaagsan. ruushka weeraradiisa waxa uu ku xoojiyay Ukraine. aagag cusub ayuu gacanta ku dhigay. isbedel weyn ayaa la dareemayaa furimaha hore ee dagaalka tan iyo bishii la soo dhaafay, iyadoo sidoo kalena ciidamada ruushka lagu soo waramayo in ay markan qabsadeen in ka badan 250 deegaan oo ciidamada Ukraine gacanta ay ku hayeen. dagaalka Ukraine waxa uu muuqdaa mid si tartiib dhanka ruushka uga soo gabagaboobi doono, yacni ruushka waxa uu qabsanayaa magaalooyinka bartilmaameedka u ah. tan iyo bilowgii bishii la soo dhaafay Agoosto, ruushku waxay bilaabeen ugu yaraan 3 weerar oo waaweyn. weerarkii ugu horeeyay waxa uu ka dhacay waqooyi bari magaalada Pakros iyo hareeraheeda bilowgii bishaas. natiijada weerarkaasi, ruushku waxay awood u yeesheen inay jabiyaan difaacyada Ukraine ee aagaas, waxayna gaareen lakabka labaad ee difaaca Donbass. taasi waxay qasab ku noqotay ciidamada Ukraine inay soo diraan askar kale oo lasoo daabulo, weliba cutubyadoodii ugu xooga badnaa, si xaaladda meesha loo dejiyo ama loo xasiliyo. weerarkaasi waxa uu ruushka u suurageliyey inay dhaqdhaqaaqooda kusii xoojiyaan jihada Zabaro isla markiiba kadib markii uu dhammaaday weerarkii koowaad, balse ahaa mid wax ku ool ahaa ee dhanka Bakofiskina. ruushku waxay bilaabeen weerar cusub oo ay ugu yeereen weerarka Zaporizhzhia. muddo 2 ilaa 3 toddobaad oo dagaal culus ah kadib, ruushku waxay si weyn u hagaajiyeen aagagooda, iyagoo gacanta ku dhigay 10 tuulo iyo deegaano ku yaala wabiga Mawli galbeedkiisa. qiyaastii 12 Sebtembar, Ukraine waxay garoosatay in xaaladdu meel aad u adag ay marayso, waxayna ciidamo dheeraada ku soo wareejiyeen halkaas si ay u xakameeyaan ruushka. tan waxay keentay in dhaqdhaqaaqii ruushka uu yara gaabto, inkasta oo aysan u muuqan inay joojinayaan weerarka. waxaa la saadaalinayaa inay isku dayaan qabsashada tuulada lagu magacaabo Baltavka, balse taasi hadda muhiim uma aha. sababtu waa in Ukraine markay ciidamo cusub geeyaan aagaasi, ruushku ay isla markiiba bilaabeen weerar kale oo cusub marka loo eego waqooyi bari iyo sidoo kale dhanka gobolka Kharkiv. waxaa horey loo helay warar sheegayay isbedelo cusub oo ka socda halkaas. haddaba su-aasha taagan ayaa ah, ma haystaan Ukraine-ku ciidamo iyo keed ku filan oo ay ku xasiliyaan aagga cusub? shaki weyn ayaa jira, waayo qorshaha ruushku waa mid cad. ma doonayaan inay la dagaalamaan difaacyo adag oo khasaare u keenaya, balse waxay weerarayaan meelo ay ka heli karaan guul sahlan oo degdega haddii aysan arkin faa'iido dagaal kama furaan aag. 24 ilaa 27 saac la soo dhaafay, ruushku waxa ay horumar weyn ka sameeyeen hareeraha magaalada Vichansk. waxa ay qabsadeen aagga warshadaha ee magaalada oo ku yaala dhinaca Ukraine ee webiga Volta. taasi marka waxay qasab ku noqotay Ukraine in ay dib ugu gurtaan koonfurta magaalada. qaybta koonfureed ee Vichansk waxa ay ku jirtaa ama ka socda duqeyn culus oo gantaale iyo diyaarado ah, waxaana ay u muuqataa in Ukraine aysan muddo dheer difaacan karin halkan. isla mar ahaantaana dagaal xoogan ayaa ka socda kaymaha ku dhow tuulada Zalekawa. ruushkuna waxay si tartiiba ugu sii dhowaanayaan halkan, waxayna u muuqataa inay qorsheynayaan in magaalada Vichansk si buuxda ula wareegaan toddobaadyada ama bilaha soo socda. weerar kale ayaa ruushku wuxuu ka bilaabay waqooyi bari gobolka Kharkiv, xadka u dhow. xogta la helay waxay muujinaysaa in ruushku si weyn aagagooda isbedel ugu sameeyeen, u hagaajiyeen, waxayna gaareen hareeraha tuulada Fadreden. maanta warar ayaa sheegaya inay qabsadeen tuuladaas. warbaahinta taageerta ruushka iyo qariirad sameeyayaasha madaxa bannaan waxay xaqiijiyeen isbedelkan aan sheegayno. haddaba ruushku waxay u muuqdaan inay ku sii socdaan dhanka koonfureed, iyaga oo bartilmaameedkoodu yahay tuulada Kodisa. su-aashu waa, ma awoodaan Ukraine in ay iska caabiyaan ilaa magaalada Jiguf? haddii ay awoodi waayaan, ruushku waxay si tartiiba ugu sii gudbi doonaan gudaha gobolka Kharkiv. waxaa intaasi dheer in dagaalo culus ay ka socdaan magaalada Kinsk, gaar ahaan waqooyiga galbeed ee magaalada. ruushku waxay sii wadaan weeraro halkaasi ka socda, waxayna u muuqataa in ay ku sii socdaan wadada weyn ee number 26 agagaarka tuulada Zebova Nafosulka. wararka ilaha taageersan Ukraine waxay iyaguna xaqiijiyeen horumarka ruushku uu sameeyey. halkaas ayaa Ukraine waxaa ku qasabtay in ciidamadii saddexaad ee guutada Azov dib ugu soo wareejiso. guutadan horey waxa ay ugu dagaalameen weerarkii ay Ukraine ku qaaday jihada Lyman xagaagii 2025, waxayna aad uga daaleen dagaaladaasi.
weliba ay ku daaleen. haddaba marka iyada oo aan waqti fasax ah la siinin waxaa lagu qasbay in loo raro jihada Kupiansk. taas waxay muujinaysaa in Ukraine aysan hayn ciidan cusub oo lagu xasiliyo xaaladda, balse ay ku qasban tahay inay isticmaasho guuto daalan, taas oo laga yaabo in ujeedadeedu noqoto oo keliya inay furaan wadooyinka lagu daadgureeyo dadka ku haray deegaanada bariga webiga. haddii Ruushka dagaalkan uu sii wado oo waqooyi bari Kharkiv sida ay ugu guuleysteen jihada Zabaro, waxay noqon doontaa dhibaato aad u weyn oo Ukraine soo food saartay. haddii aan u gudubno jihada Lyman, halkaas Ruushku waxay sii wadaan weerar, waxaana xitaa saraakiisha sare ee ciidamada Ruushka oo uu ku jiro Valery Gerasimov ay sheegeen in ciidamadoodu gudaha u galeen tuulada lagu magacaabo Yambamba, sidoo kalena ay dagaal ku jiraan oo ka soconaya magaalada Kisk. inkasta oo aan weli la helin caddeyn buuxda, haddana waxaa muuqata in dagaalo culus ay ka socdaan halkaas. Ukraine ay ku qasban tahay inay dib uga gorato deegaano ay horay u haysatay. dagaalo kale ayaa ka socda tuulooyinka Shandyrov iyo weliba sidoo kale deegaanada ku dhow, halkaasoo ay Ukraine gacanta ku haysato 20 ilaa 30% oo keliya, waxaana la filayaa inay dhowaan isaga wada baxaan halkan. su-aalaha taagan ayaa ah, Ruushka ma sii wadi doonaa weerar ku socda koonfur si ay u qabsadaan tuulooyin kale, mise waxa ay u jeedsan doonaan galbeedka si ay u gooyaan sahayda Ukraine ee jihada Bara. jihada Bakovsk iyo Konstantinovkana madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa dhowaan booqday si uu la kulmo ciidanka uguna dhiirigeliyo xaaladda halkaasi ka taagan. waa mid aad u adag, inkasta oo bil dhan uu socday weerar ay Ukraine isku daysay inay ku joojiso Ruushka, haddana ma aysan guuleysan. Ruushku waxay xoojiyeen aagagooda, waxayna u muuqdaan in ay ku sii siqayaan magaalada Konstantinovka. dagaalada halkaasi ka socdana waa kuwa gudaha magaalada ah, taas oo haddii Ruushku ay qabsadaan uu noqon doonto guul warbaahineed oo weyn. magaalada Bakros lafteeda, Ruushku waxa ay mar kale isku dayaan in ay ka qabsadaan dhanka koonfur galbeed. hadda qayb ka mid ah koonfurta magaalada waxay u muuqataa inay si buuxda gacanta ugu jirto ciidamada Ruushka. ujeedadoodu waa inay la wareegaan xarumaha tareenada si ay u gooyaan wadada keliya ee sahayda Ukraine. haddii taasi ay dhacdo, dagaalka Bakros wuxuu geli karaa marxalad burbura. jihada Zaborana 24 saac la soo dhaafay, Ruushku waxay sii wadeen horumarka. ciidan ka tirsan ciidanka shanaad ayaa si joogto ahi horay ugu sii socda. tuulooyin badan ayaana qirad sameeyayaasha ay calaamadeeyeen in ay gacanta Ruushka ku jirto, inkasta oo Ukraine xog cusub usoo dirtay ama kasoo dirtay dhanka waqooyiga, haddana waxay awoodi waayeen inay joojiyaan Ruushka oo koonfur xoog badan kasoo sameeyey. waxaana la filayaa in dagaalo waaweyn ay ka qarxaan tuulooyinka kale ah Akerna iyo sidoo kale Balava. haddii ay dhacdo, Ruushku waxay sii wadi karaan weerar si ay ula wareegaan tuulooyin dheeraada oo ku dhow wadada weyn ee R85. dagaalada Ruushku halkaas ayay marayaan. aaga kale ayay Ruushka qabsan karaan. maalmaha soo socdana waxaa la saadaalinayaa dagaalka inuu wajiyo kala yeelanayo. sida muuqata hadda Ukraine si toos ayay u daashay. ciidankeedu way daaleen, ma helaan bedel, ma helaan hubkii ku filnaa, ma helaan. waxaa ku dhow Ukraine ciidamadeeda in subax lagu soo kaco iyaga oo faarujiyay dhammaan aagagii la isku hayay oo uga soo tagay ciidamada Ruushka sababa la xiriira ciidankoo daalan iyo weliba ciidamada oo aan bedel hayn. ciidamakeeda lama hayo, yacni wixii Ukraine ay awoodi kartay way isticmaashay. saaxiibadeeda reer galbeedkana si weyn ayay ugu fiirsadeen oo iyaguna marka laga soo tago taageerada hubka, sidoo kale waxay ku taageereen oo keliya cambaareen iyo cunaqabateyn la saaro Ruushka bedelkii awood la adeegsan lahaa. hadda Ruushka ayaaba laga cabsanayaa oo Yurubta iyo galbeedkoo dhan ka cabsanayaan, oo ah Ukraine in uu soo dhaafo weerar uu kusoo qaado Yurubta qaybo ka mid ah Yurubtan yaryar iyo ilaa Poland, inuu yacni Ruushka cagta soo mariyo dagaal kusoo qaado. oo NATO ayaaba leh annaga miyaa dagaal geli doona Ukraine, hawsheedu waaba naga soo weynaanaysaa. marka waxaa leeyahay Ruushka sheekadan cabsigelinta ah wuxuu u damacsan yahay in ugu yaraan culayska laga qaado dhanka Ukraine si ciidankiisu ugu suura gasho inay si tartiiba Ukraine oo dhan gacanta ay ugu dhigaan. maxay kula tahay daawade aragtidaada? ma isleedahay Ruushka uu ku guuleysan doonaa inta aanu sanadkan dhammaanin Ukraine dagaalkeeda? qaybta hoose commentiga ku reeba mahadsan. barnaamijka xigeentan ku kulmayna nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.